Assalaamu calaykum asxaabtayda sharafta leh ku soo dhowaada barnaamijka la yaabka dunida qaybtiisa saddexaad. Diyaaradaha waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu safro haddana ugu dhaqsiyaha badan. Waxaa jira garoomo diyaaradeed oo fara badan, khatartooduna daran tahay. Kuwo waxaa jiro buuraha hoostooda ku yaalla, halka kuwa kalena ay ku yaalaan xeebaha ama badda dhexdeeda. Eelaboorada kala halis badane, halkan maanta waxaan idinkugu hayaa garoonka diyaaradaha ugu halista badan dunida, yacni bay'adda garoonkaas oo aad halis u ah, sidoo kale duuliyaasha ka howlgala oo tiro ahaan aad u yar. Eelaboorkan waxa uu ku yaallaa buuraha Himalayas, waddanka Bhutan, gaar ahaan magaalada Paro ee koonfurta Asia. Buuraha hoostiisa uu ku yaallo cimilada meeshaas oo aad u xun, sidoo kale waddada diyaaradda ku soo degayso aad u yar, laguna qiyaaso 6,500 oo fiit, ayaa ka dhigaysa in uu noqdo garoonka diyaaradaha ugu halista badan dunida. Garoonkan diyaarad kasta kama soo degi karto, waayo waxa uu u baahan yahay duuliye khibraddiisu aad u sarreyso, taxaddar iyo feejignaan badanna muujiyo. Oktoobar 2009 8 duuliye oo kaliya ayaa loo oggolaaday dunida oo dhan in ay diyaarad ka soo dejin karaan ama ka soo duulin karaan garoonka diyaaradaha magaalada Paro. Tani ayaa ku tusinayso khatarta iyo halista uu leeyahay garoonkan. Eelaboorkan waxaa ku hareeraysan buuro la dhahaa Himalayas, kuwaas oo dhererkoodu gaaraya 5,500 oo mitir. Diyaaradaha ka howlgala garoonkan waxaa loo oggol yahay in ay ka baxaan ama ay soo galaan maalintii oo keliya, iyadoo la fiirinayo isbeddelka cimilada. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in duuliyaha laga rabo inta diyaaradda aysan soo caga dhiganin garoonka in indhihiisa uu ku fiiriyo garoonka in lagu soo degi karo iyo in kale. Sababta ayaa ah in uusan ku kalsoonaanin qalabka cimilada lagu cabbiro ama aaladda loo isticmaalo in lagu saadaaliyo hawada. Sidoo kale, diyaaradda marka ay garoonka u soo dhowaato, duuliyaha waxaa laga rabaa in uu dhowr mar soo warwareejiyo diyaaradda si aysan ugu dhicin buuraha ku hareeraysan, si habsami lehna ugu soo degto garoonka. Dadka badanaa meeshaan imaado waa dalxiisayaasha. Waxaa lagu qiyaasaa 30,000 oo qof oo dalxiisayaal ah in ay garoonkan imaadaan sanad walba. Asxaabtayda sharafta leh, maanta barnaamijka la yaabka dunida qaybtiisa saddexaad halkaas ayuu ku egyahay. Waxaan si xushmad leh kaga codsanayaa muuqaalka inaad sii faafisaan. Haddii aad nagu cusub tahayna kanaalkan subscribe saar, gambaleelka furo si aad oola socoto warbixino badan iyo muuqaalo badan oo soo gudbin doono insha Allah.